السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيت يوتيوب أي سلامي عشان إنه حكوا سابسين هاي حدي أن كسميستو سب مي ناو إن فريدم كا أم شركة ذاك لما إيه حسابنا يعني حدي أن سبسكرايب مركز تنا كسميستنا دب ميا إيجا إيمانا يو مركا داو شو نكسن marka waxay tahay sub me now markaa gashid inta badan waxyaabaha aan marka hore aan u sharax waxay tahay qofka inuu subscribe helo laakiin tijaabo badan la sameeyey iyo waxyaabo badan la sameeyey waxaa ka mid ah qofka markii uu sub me now ka sameeyo subscribe haddii subscribe-kiisa markasta uu ka sameysanayo dhibku kala kulma waxaa ka mid ah dadkan aad subscribe ku sameysay waxaad ogaanaysaa tobanka ma lagu siina maalin kasta waxaad ogaanaysaa in subscribe-kaas aysan ku daawanaynin youtube-ka wuxuu qiimeynayaa qofka subscribe markuu ugu sameeyo waa inuu hadda hal video kaa daawado hal video xitaa 10 second wax harto ahaato waa inuu kaa daawado taas marka waxay ku adkeynaysaa in youtube-ka markuu muddo joogo dadkan aad sameysanaysa tirada badan maalin kasta oona ku daawanayn wuxuu dareemayaa in dadkan aad subscribe kugu sameynaya in aysan ahayn dad saxa iyo dadka badana shirkadaha kale intee tagaan website ku dhahay views aan ku siinaa fadlan haddii aad rabtid inaad youtube lacag ka samaysid si saxa u dhaqan inta badan dadka ku dhacay waa dadka janaaladooda xayisiinta lacagta laga xiray ama adsensiga laga xiray oo suspendi looga sameeyey laakiin janaalkaaga youtube-kaaga wuu shaqeynaa haddii aad leedahay janaal caadiya oo aadan u rabin inaad lacag ka shaqeynin oo youtube-ka ma danaynayo haddii aad million subscribe sameyso adiga ku taalan wax u danaynayo ma lahan subscribe badan waa sameysan kartaa views badan waa sameysan kartaa adigay ku taalan laakiin markaad timaado business sababta youtube-ka wuxuu aad u ilaalinayaa in samee hadda tusaalehaan janaalkan ayuu qofka imaaday subscribe badan ma helin subscribe-ka sidii ku helaa qofka subscribe waxaad ku heli kartaa waa in aad dadka waxaad u sharaxaysid ay kaa dareemaan inay wax faa'iido leeyihiin tusaale hadda janaalkan mar dhow ayaan furay subscribe-kana waan helaa laakiin maxay tahay waa inaad dadka siisaa wax ay ka faa'iidayaan qofka janaalka markuu imaado oo hal cashir daawado oo dhaho cashirkan ila waa faa'iiday wuxuu isku dayaa inuu qofkan maadaama u faa'iideeyay inuusan ka harin oo casharadiisa la socdo oo dan ku qabo laakiin haddii cashirka qofkan ku imaado oo maanta dhama cashirka daawana ku xishto ku fahmi waayo subscribe-ka xitaa uu kala laabana iska daa inuu subscribe qofka lagu siiyo midda kale waxaa ogaanaysaa commentiga ayaa dadka lagu ogaadaa mataqalan video ayaa la imaado waxa lagu leeyahay videogan commentigiisa tusaalaha dadkan badan wuxuu ku leeyahay waa sharci inaad ku heshid laakiin inta badan haddii janaalkaaga subscribe aa u ratid waxaa samaysataa facebook oo groupka saaxiibada ha taqaanid waxay jecel yihiin ka usoo bandhig iyo waxay xiiseynayaan tusaalehaan aan hadda markaan bilaaway youtube-ka waxyaabo badan ayaan aan kala kulmay markaan bilaawayay sida hadda aad dadka aad u yaqaani janaalkayga ugu weyn axmed shafeec waxaan ku bilaaway waxay tahay dadka u faa'iideynta keliya ma ahan adigoo dadka u faa'iideynaysid waa inaad social media a ku leedahay dad macnaha dalabaadkooda u fulinaysid waxyaabay jecelin aad tusaysid waxaa kaga aqoon badisid waa inaad tusto xataa haddaad aqoonin waa inaad la kaashataa dadkaaga aqoon badan keliya ma aha cilmiga lagu sheega waxay tahay alcilma bayna talaamiid waa inaad kala faa'iidaysataan adigu qofka kale u tagaysa waxaa leedahay niyon dalabkaas ardayda weydiisteen minum ii faa'iideeyey waa fahantay keliya ma mataqaana ad waa lagu baray adi haddii lagu bara gaarsii walaalkaa kale saas subscribe waa helaysaa viewsna ma raadinaysid mar kastaba subscribe-kaagana wuu ziyaadayaa laakiin waxaan ku waaninayaa haddii aad rabtid youtube-kaaga inaad lacag ka samaysid oo si fiican aday habeen iyo maalin aad kaga korboon janaalkaaga inuu shaqaynayo oo dhib kaaga imaanin fadlan sameyna waxaa u isticmaalin janaalada adsensiga ama janaalada lacagta kugu xiran oo adsensiga iyo freedomka dhammaan dhib ayaa kaala kulma sababto kulle youtube-ka saa shirkad adsensi ayadaa xukunto wayna ogaanaysaa wayna og tahay waxyaabaha qalad kasta janaal kasta ka dhacayo marka insha allah bidna kale hadalka aan ku dheereynin laakiin inta badan maadaama qaladaad badan aan dadka la soo kulmeyn waa gooni inta badanna janaalo badan oo subscribe laga tiro waxay tahay ayaga janaaladaas ganaax gooni ayaa saaran arrin gooni ayaa lagu haystaa marka waxaad ogaanaysaa janaalada badanaa xitaa laga tirayo subscribe-ka oo waaweyn waxaad ogaanaysaa dadka badanaa markay muddo daawanin ay ka soo wareegtaa muddo
waa laga masaxayaa dadka badan aan daawan, laakiin inta badan janala ujeedi subscribe-kooda way la socdaan, wax yar xitaa ha ka daawadaan. marka insha allah bidna kariim ka faa'iidaysi wanaagsan. janaalna youtube haddaa furatid la tasho qofka kaaga horeeya si aad khasaare aad ula kulmin. laakiin dad aad youtube ayaan furanaya, lacag ayaan ka sameynaya, waxaa laga yaabaa inaad dhibtootid aad kala kulantid khasaaro markaa muddo joogteed. insha allah bidna kariim iska ilaali subminow janaal aad lacag ka shaqaynaysid, fadlan ha u isticmaalin si adsensiga suspendi kaaga sameynin. insha allah ka faa'iidaysi wanaagsan. waxaan isku dayaa mar kastana ceeb ma ahan qofka bilaadanka, anigu waxa cilmi ma lihi, laakiin waxaan aqoon yar aan u leeyahay inaan walaalkay kale u faa'iideeyo. qof kastana bil'aadana naftiisa xaaladda daran wuxuu intuu dadaalo iyo isdhihin wax ma qaban kartid, cilmi ahaado noloshaada waxay inaa ka bedesha aado, fadlan ku dadaal inaad horumarka naftaada u samaysid. insha allah bidna kariim ka faa'iidaysi wanaagsan. dhammaan aan isku soo duceyno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh, wajazaakum allahu khayran.